السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسر هذا شرحات كصابسن ويب سايت كورشدها .com بدنكي waxaa laga yaabaa inaad website ka aragteen ama Facebook ka arag ama si kale u maqal su'aasha qofka isweydiin kara waxay tahay website kan muxuu yahay muxuu qabtaa maxaan ka faa'iidayaa sideen isaga diiwaan geliyaa sidoo u shaqeeyaa su'aalo badan oo maaragtay kala duwan ayaa jira oo dadka ina soo weydiiyeen haddaba halkan kala soco jawaabtoodii insha Allah ta'ala warshadaha.com sida u jeedo waa website caalami ah aad ka helayso 800,000 oo warshadood waxaan rabaa inaan diiradda saaro afar qodob oo warshadaha.com aad ka helayso marka hore page kan information ay ku qoran tahay mar walba taabo si aad ugala socoto fiidiyoyo ku saabsan sida website kan u shaqeeyo sida la isaga diiwaan geliyo wixii su'aalaha qabto dhan jawaabahooda halkan ayaad ka helaysaa page ka information ay ku qoran tahay ha moogaanin kaas ku dhufo mar walba afarta qaybood ee website kan hadda aad ka helayso iyo qaybo kale oo ka duwan oo aan ku soo dari doono insha Allah iyadana aan video ka sameyn doono ayaan marka hore ka hadlay qaybta koobaad waa listing of the warshadaha magacyada information ka warshadaha tusaale 17 kan wadan aan u jeedaan meeshan ku qoran iyo category-yada meesha ku qoran warshadahooda ayaad ka helaysaa haddii aan mid kamid ah ku dhufto automobile haddii aan ku dhufto waxa ii soo baxaysa information kana ii soo baxaya oo ku saabsan sida qalabka baabuurta iyo noocyada u kala baxaan aan ku helnaa haddii aan mid kamid ah ku sii dhufto dabcan waxay weydiinayaa inaan isdiiwaan geliyo haddii aan isdiiwaan geli $10 bishii si aad gudaha u gasho marka haddii aad account-kaadu active yahay sidaas ayaad gudaha ku geli kartaa haddaba qaybta koowaad waxaan nahnay waa qaybta 17 wadan warshadahooda information koodii address koodii telephone koodii website ka warshada halkay ku taalay waxay sameynaysay warbixintaas oo dhan oo dhameystiran ayaad ka helaysaa qaybta labaad waa qayb iyadana educational ah oo aqoon ah ama koorsooyin ah haddii aan imaado meesha ay courses ku qoran tahay aan ku dhufto halkaan uu keenaya tusaale iyadana waxaan ku soo bandhigaynaa casharo badan oo tusaale kale halkaan waxaa ku qoran alibaba.com baro sida alaabo looga iibsado suuqa weyn ee Alibaba koorsadan oo kale haddii aan view lesson dhaho waxaad ka baranaysaa sida shirkadda weyn ee alibaba.com ee u shaqeyso sida alaabo looga iibsado warshadaha saxda ah kuwa khaladka ah alaabtii intaad ka soo iibsato Alibaba siday kugu imaan lahayd caalamka meel walba ay joogto shipping company-da isticmaalayso wixii oo dhan ayaad ka baranaysaa marka hal koorso ma aha dhowr koorso hadda ku jira koorsooyin kale oo badan oo ku soo wadnaa sida import iyo export ayaan ku soo wadnaa tusaale koorsada labaad ee kale iyadana haddii aan tan ku dhufto waxaad ka baranaysaa baro sida loo dhiso online store tusaale warshadii alaabta ka iibsan lahayd waa heshay China ku taalaa hadda waxaa rabtaa inaad barato mataqaanaa sida online store u sameysan lahayd website-kii dhismihii website-ka loogadii information-kii alaabtii aad ku iibin lahayd sida alaabtii ku keeni lahayd online store-kii weeyaan marka waxay noqon kartaa alaab gurigaaga ku taala oo aad gurigaaga ku iibiso online website u leedahay ama alaab bakhaar taalo sida fulfillment center-rada kale taalo aad ku iibinayso online ka ku iibinayso ayuu kala baxdaa taasoo kale iyadana casharadaas ayaa kamid ah ku jira oo hadda sii socdaan wali koorsada saddexaad ee hadda ku jirta iyadana waxa weeye haddii aan dib u laabto oo aan ku dhufto koorsada saddexaadna waxa weeye waa baro DHgate iyo 6 shirkadood sida alaabaha looga iibsado marka meeshan hadda isku soo koobo guud ahaan qaybta koorsooyinka ee labaad waxaa ka helaysaa waxa waaye qaabka iyo barashadii aad ku baran lahayd shirkadaha waaweyn sida Alibaba import export ka alaabaha uga iibsan lahayd oo dhan ayaa ku baranaysaa qaybta saddexaad iyadana waxa weeye waa logistic kambaniyada shipping ka sameeya kuwa ajaanibta kuwa Soomaalida information kooda ayaa iyadana ka dhaxlaysaa website kan hadii la yiraahdo marka waxa laga yaabaa in alaab hadda aragto inaad China ka soo dirto inaad raadinayso company ku soo qaado oo ku keeno Soomaaliya Kenya Mareykanka waxaa rabtaa inaad ajaanib la macaamiisho waxaa rabtaa inaad Soomaali la macaamiisho cidda rabta la macaamil information kooda ayaad ka helaysaa qaybta afraad ee u dambaysa waxa weeye waa Facebook group kan
oo qof walba oo member ka ah warshadaha oo iska diiwaan geliyo in uu mataqaanaa kusoo biiri karo halkaan wixii su-aalo u qabo kusoo qori karaan oo ka caawineen insha allah si bilaash ah. groupkan lacag laguma soo galo oo group iska bilaash weeye, laakiin dadka memberska kaliya ayaa soo geli kara oo iska diiwaan geliyay warshadaha.com. marka waa extra help oo aan isleenahay groupkan aan u aasaasnay inaan ku caawino dadka raba inay mataqaanaa ganacsina bilaabaan, online store dhistaan, rabaan in mataqaanaa inay businesskooda horumariyaan, su-aalo badan ay qabaan mataqaanaa jawaabtiisa helaan. marka afarta qaybood ka kooban yahay website-kan. qaybo kala jirto aan kusoo dari doono insha allahu tacaala iyadana. mar walba waxaa kala socon doontaa private Facebook groupka markii aad kusoo biirto warshadaha.com iska diiwaan geliso, fadlan soo codso in lagugu daro private Facebook groupka, emailkaada noo sheeg, waxaan hubinaynaa inaad member tahay. haddii aad member tahay sidaas ayaad mataqaanaa kusoo gelaysaa groupkan, su-aal walba aa qabtana waad jawaabteeda helaysaa. shipping companiyada informationkooda waa ka heli doontaa insha allah. wixii kaloo cabsi kugu jirto oo warshad wax ka iibsan lahayd ama su-aalaha qabtana jawaabtooda ayaa ka helaysaa insha allahu tacaala. sidaas ayuu u shaqeeyaa website-ka warshadaha.com. khayr baa idin rajaynaya, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.